madaxweyne Mustafa Maxamed Cumar ayaa maanta waxa uu magaalada Addis Ababa kula kulmay safiirka midowga Yurub Itoobiya u fadhiya iyo safiirada wadamada reer galbeedka u fadhiya magaalada Addis Ababa. Johan oo ah safiirka midowga Yurub u fadhiya dalka Itoobiya ayaa sheegay in madaxweyne Mustafa Maxamed Cumar ay kala hadleen caqabadaha iyo fursadaha ogaadeen ka jira iyo sida uu midowga Yurub uga qayb qaadan lahaa arrimahaasi. ergeyga gaarka ee midowga Yurub iyo safiirada dalalka midowga Yurub ee Addis Ababa ku sugan ayaa sheegay inay xooga saari doonaan wax ka qabashada arrimaha xuquuqul insaanka, gargaarka bini'aadanimada iyo dhisidda kaabayaasha dhaqaalaha ogaadeenaya. madaxweyne Mustafa Maxamed Cumar ayaa ballan qaaday markii xilka loo dhiibay inuu wax badan ka qaban doono xaaladda qalafsan ee ka jirta dalka ogaadeenaya. ogaadeenaya oo dhowr iyo 10 sano u dambeeyay cunaqabatayn saareen kooxda TPLF ayay u diideen inay booqdaan halkaasi hay'adaha gargaarka iyo weliba safiirada u fadhiya dalka Itoobiya caalamka. tan iyo intii uu xilka la wareegay madaxweyne Mustafa Maxamed Cumar waxa booqashooyin isdaba jooga ku yimid ogaadeenaya safiiro iyo hay'ado badan kuwaasi oo kamid ah kuwa deeq bixiyayaasha. dalka ogaadeenaya ayaad moodaa inuu galay jawi ka duwan jawigii uu ku jiray dhowr bilood ka hor, waxaana booqashooyin kala duwan ku imaanaya safiirada reer galbeedka ee fadhiya Addis Ababa. sidoo kale waxaa la filayaa in ogaadeenaya ay yimaadaan deeq bixiyayaasha caalamka kuwaasi oo il gaar ah ku eegi doona dadka ku dhibaataysan kuna barakacay colaadaha u dhaxeeya shacabka ogaadeenaya iyo kan Oromiya. kumanaan kun oo ruux ayaa ku barakacay gudaha dalka ogaadeenaya waxaana ay ka buuxaan xeriyo waaweyn oo laga ooday qaybo kamid ah wadanka ogaadeenaya. dadkaasi ayaan helin wax daryeel caafimaad iyo gargaar toona, waxaana la filayaa in deeq bixiyayaasha caalamku ay gargaar bini'aadanimo loo soo gaari doonaan dalka ogaadeenaya.